waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wanaagsan daawadayaal halkan waa telefishinka caalamiga Star TV xaruntiisa magaalada Hargeysa barnaamijkani hal abuurka hirgalay oo ku wareysano qoraalada iyo qof kasto hal abuur bilaabay oo hirgalay caawa waxa marti inoogu ah Xamse Saciid Maxamed Xamse Turaale Xamse soo dhaw bismillaahir rahmaanir rahiim walaal aad iyo aad baad mahadsan tahay sida kulan kaaga mahad celinaya inaad igu soo marti qaaday barnaamijkaaga Xamse walaalo waxa magaca miskiin laga maaha waxaad tahay Xamse Saciid Maxamed Xamse Turaale maxaa Xamse Turaale lagu bixiyay kulli naanis kasta si bay u baxdaa oo noognahay buugeygii aan qoray ugu horeeyay Turaale ayay iga timid naanisto yani ciwaanka buugga wuxuu ahaa magaciisu ahaa Turaale marka halkaas ay iga dhigtay naanisto Turaale in yara warbixino kooban bulshada ka sii cid aad tahay shakhsi ahaantaada أنا واحد هاي حمزة سعيد محمد واحد شيء كوني سجال بقولي لبيس عشان كي بشي ديسمبر كوبي ستة كذي واحد كل شيء دولة تيجان كإثيوبيا دولة تيجان كصوماليا إثيوبيا نحن كصابر باري مقالة هرجيسة هل كسان نحن برشة ذيك بلعبي لبدي كوني كودي واحد قال لي مدرسة لرضا عبد الله بن مسعود تاسو أنسو قال لي هركي دوكسي كده sidoo kale dugsiga la yiraahdo Waraabisnaan Manasablood aan isna ku qaatay dugsigeygii hoose iyo dhexe qayb kamid ah halka aan dugsigeygii dhexe qaybtiisii ugu dambeysay ku qaatay dugsiga la yiraahdo Sheekh Madar Axmed Xuseen Giire secondary schoolkii isna waxaan ku qaatay dugsiga la yiraahdo 17 May jaamacadana waxaan dhigtaa jaamacadda la yiraahdo Islamic Online University oo aan ka diyaariyo fielka psychology-ga garanay Xamse Turaale waa buugaaga koobaad ee qortay waana halka buug ee kaliya ee qortay imika magaca Turaale marka maxaad ku dooratay amba muxuu yahay Turaale ereyga Turaale hadii aanu micnayno bulshooyinteena daawanaysa ereyga Turaale waxa weeyaan waxay ka timid tourist bay ka timid yani waa qof wax u turayo kale yani amba waxa aragtay qof looran ma Turaale lahayn yani ma wax u turayna ma naxariis lahayn halkaas marka ka timid okay aanu gudagal buugeeni Turaale شو حكوا قرن شيكوين فربضن أو نلش كل السيسو أنك سوقات الشيك هذه وجوه الرئيسي أنك آخري بوجكته أم بشي دور شيكو يجسوا تيجي بوجا مركن آخرية تعيلك ديج الراعي واحد كجهل الشيكة تعيلويان اللي يرتنا أنت وجو بدن واحد يحس سوا تعيلك بوجا جاسنا حلاجة ومركن تال آخرين كوهر جلي شيك هذا سنة ما إنجر إن النور سوقاته الشيك هذا نوعه هاي تعيلك ديج الراعي وشيكة تعيلة sida laga dhahan kara ciwaankeedaba inan ay haayeen waxa isku barteen meel mool ama meel yani wax lagu iibiyo dharkiyo waxyaalahaas lagu iibiyo inta ku shaqeyn jirtay dadana si walaaltinimo isku barteen markii ugu horeysay waxa dhacday iyagoo si walaaltinimo isku yaqaaneen muddo ayaa inuu ku xuqa dhakhtar buu ahaa dadana subaxa kamid soo shaqo galeen buu arko inantii oo yani taala dhakhtarka taasoo loo diiday yahay waxa xanuunsanayso dhiig u shubta la diiday marka iyadu bila dhiig weyn noqotay dhacday dadna markiiba uu soo galay uu eegay waxa arkay jiigu sidii yahay inay inantii tahay yani xaaladdu sidii adag tahay dhowr qof oo ehelkeeda ayaba dadniyada ku xareereysna doonayay dhiig u shuban qof kasta marka laga qaado yani nasiib darro isku dhiig ma noqdaan akhiiran waxa dhacday inankii wuxuu go'aansaday inuu shubo dhiiga dadna dhiigiisa baagamisa waa isku blood type amba isku dhiig nooca dhiigooda isku mid ahaa inanku uu shubay akhiiran markii uu shubay in gaabina dhakhtarka ku jirtay marka hore inanku marka dareen ahaan yani inantu uu ka yar helay dhaqankeeda iyo qaabka ay ahayd laakiin yani uu soo bandhigin ama uu sheegay inuu doonayo ama uu ka helay inuu yani jacayl uu la wadaago المدام كي إنتي تالي أي بوكستي يعني هي كسر حنون كدي بقصة كبتي أحد عادين صباح حاكم يسوق السوشيال جن إن ديك لوجا صار يختاركي إن يلا مركب حلو دياريني كان عدي بدات إن تبارك الله حيسمى يسوي ورقة قرطي ترى إن النهار يسوي دي بتوع اختارك شوتي إن تبارك الله دي أي هي ولا وأنا أوجاتين وديك ودوش إنه ديك وش exactly وأوجي ديك إنه وش dadana akhiran warqad inankiiba soo galay shaqadii soo galay sidii caadada ahayd uu soo eegi jiray oo xaaladdeedu ka soo wareegay jirmo soo shaqada soo gala subaxii sirtu ka waayay uu yar yaabay dadana inantii socota nurse ahayd baa timid oo warqadii dhigtay warqadii waa akhriyay yani warqad wax ku qornayd yani abaal baan kugu haya inaad yani diigaaga ugu deeqday waxay tiri sidoo kale waxaan dareemi karayaa qiimahan agtaada anu kala ahaa maadaama
dhiigaaga aad dhiigaaga ii ii shubtay kolay sidoo kale waxaan dareemay betri jacayl ama inay yani igu kaa dhashay dareen jacayl taasoo kolay aan filay betri inay sababeen xinjirihii isu keen dhaafay inaga inantii akhiiran waxay kusoo gabagabaysay waxaan u baxayaa jaamacad waxaana laga yaabaa inaan mar dambe saray laakiin waxaan rajeynaya inaan sarki doono inankii gebigiisaba stressed buu noqday يعني هسكو باكو شيء واي لما فيلم بيكون نقطة مركي إن أنت أي بحضي حلي أي بحسي يسموين وحنا ندب بوها كديسوها مركا waxa ku jirtay maalin maalmaha kamid ah isagoo deetana meel alaalaay oo lambarka mu haynin wax kale kama haynin isagoo deetana maalin maalmaha kamid ah sariirtiisa fadhiya ayuu yiri bal waxaad eegtaa warqadii inantii maalintii ku soo dhigtay warqadii markuu eegay ayasho waxa ku jirtay waxana warqadu ku dhigtay sawirkeedii markuu soo arkay waxa ka dama eegay mise waxba ku qoran numberkii uu qaraacay numberka waxa ka qabatay inantii walaashii yani markii uu qaraacay numberka wadnaha gariiriyay wax isla talo armalaga waxa la waxa ka soo baxay muu garanay atana inta markii qabato la hadlay kuli walaal waxaan doonayay hiblay walaal ma joogto already waxay tagtay jaamacad buu dhaftay dibadda deetana wuxuu walaal sidii macquul noqon kartaa inaan wada xidhiino waxaan u baahnaa numberkeeda haddii aad heli karayso si uu ku tiri ku soo celisay uu sheegtay numberkii uu qaraacay inantii wala hadlay inantii wala waxa ku tiri waxa laga yaabaa inaan waqti fasax aan imaado waayo waxay labadoodiba already dareenkii isku sheegteen inuu markaa wuxuu ku muhiim inaan u sheegnin laakiin iyadii waa u qaaday laakiin already iyadii baa laazim markaa waxay tiri wax laga yaabaa inaan waqti fasax aan imaado adigu sheekada sidii bay weydeen akhiiran waxay ku soo gabagabeeyeen inay tiri fasaxaan imanaya tan waqtiga fasaxa markii timid buu maharsaday dib bay u noqotay way soo dhamaysatay dadana isagoo soo dhaweynay markii labaad oo ay soo dhamaystay waxbarashadii ayaa diyaaradii markii soo airportkii soo caga dhigatay bay shil gashay inantii markiiba waxay ahayd dad ku dhaawacmay diyaaradda halkii soo dhaweyntii mashxaradu ka socotay waxay isku bedeshay qaylo wala qaaday inantii dhakhtarku in muddo ku hayay akhiiran way bogsatay tan gurigoogii bay galeen waana isguursadeen jacaylka dhiga raacay sheekayro kale iyaduna gaabnayd oo iga soo jiidatay buugaaga Tudhaale samirku waa shidaalka rajada samirku waa shidaalka rajada sheekadana waa sheeko dhiirigelina oo iyada xagga yani foxka waxay saaraysaa mid diirada ee dhiirigelinta wuxuu ahaa inay habaryartii korsatay oo hooyaa batoonaan lahayn habartii waxay korsatay sidii يعني وبدأ يدشوا كلمة الماء يدشوا كله وحبرشة ذا كبحين جرتي يعني أساسيات كنا لشيء صار يعني ذا دبرتي سيقول كشرا وقتي سكندري سكول كأي هبرتي دمتي تنا نكى هبرتي قبي أيانا هين يعني قفوا نكسن ويريح كلنا نجي جورجي داف جورجي تشوف ميس إنكي مونية تبين اسمه ريبين لكن كل يودريم كريس هذا قف ملو عرسدان هيسن dhibaatada ku iman kartaa sidii dareenkiisu noqonayo ismu dhiibina uu socday xisini marka laba mid dooreen inaad secondary schoolka ka baxdo itna drop out noqoto iyo inaad adigoo secondary schoolkaaga jooga aad hadana shaqaysato marka waqtigii ugu dambeysay bay ahayd secondary schoolkiisa wuxuu tagay deetana meel yar oo hay'ada ayuu u xaraysay CV ahaa inuu noqdo waashmaan deetana halkii waashmaan ka noqday halkii uu deetana kaga baxay secondary schoolkii jaamacadiisa buu hadana galay gelina wuxuu hayn jiray waashmaannimada ama ilaalinta yani meesha gelina wuxuu baran jiray jaamacadiisa tagi jiray aduu markii laga yaabay firfircoonidiisa iyo activity-giisa bay yani ragii hay'ada kala shaqeyn jiray ama dad kala shaqeyn jiray ayadeen qofkana waa qof aad u active ah waxaan u baahanay inuu diidino qaybta soo dhaweynta bulshada dadna uu yar dalacay qaybtiisa soo dhaweynta bulshada loo dhiibay xafiisku yeeshay niyad wanaag baa si galay yani noloshiisii wax ka bedelay isagoo noqdo qof istibari karaya ugu dambeyntii yani markasta wuxuu ka hami jiray inuu gaadhay ilaa halka ugu sareysa isla hay'adaas akhiiran uu gaadhay sidoo waday ilaa uu ka gaadhay manager ama heerka u sareeya ee maamul waxaan u sameeyay sidoo kale inuu markii dambe aanu halka ku joogsanay oo uu sameystay isagoo business isaga u gaar ah si uu noloshiisa laftigeeda waadi ugu sii dabaro halkaas aanu ku guuleystay marka halkan waxaan ka dareemi karaynaa samirku inuu shidaalka rajada yahay yani haddaanu samreen oo aanu dhabar adeeg la yimaadeen heerkaas oo dhan muuga sheekaro kale iyadana qoraal waxaa jirtay buugaagan ka dhex arkay isaseegna inagu iyo ubadka aan siino sheekadani waxay ka sheekeynaysay waxay ahaayeen يعني وقتي هره سومالي هره يعني وقتي ميجي نلاشي ميجي أتنا ودريم كريسا وحوها إنن قيل بدن بولها أتنا كل واحد نوعين مركا قيلي سبقول قارينك إنه وهويسين ترين جوسيدا إنك يعني وحو يرجلي شرمنا مساعد بوجلي ساعد كمركو جلي وحو أركينا اللي شوكت أري
meel la joogta inantii buu tagay dadna adigu waa la haasaaway oo la is waraystay inantii waxay siisay tilmaantii gurigooda maalintii labaad buu deetana yimid maalintii labaad baa reerkii la wada hadlay waxaanu deetana weydiistay bal in inantan ay u socdaan inuu geed fadhiistaan labada reer waxaa ka dhexaysay godob hore oo aanay iyagu ogeyn markay reerkii dareemeen in inankani ka socdo yani qabiilkii ay saxayeen oo hore yani isku laayeen way diideen inay inantii siiyaan inantii markii waxaa loo afduubay afka laga geliyay inabtigeed oo la siiyey inankiina yani cadhadii iyo stresskii markii uu qaaday xiisna guursaday gabadh kale guursaday in muddo ah markii laga joogay ilaa adigu 20 sano waxa dhacday ayaa maalin maalmaha kamid ah inankii gaboobay inantii gabowday ayaa iska soo baxay waariya hebel iyo eeya hebelay balwaraniyo balwarano bal ka waran maxaad carruur dhashay iyo wuxuu yidhi deetana dhowr carruuran la yahay inankii ugu weyn waa 20 jir iyaduna waxay tiri inankayda ugu weyn waa 20 jir oo inan baan dhalay deetana intay dhoola cadday saqashay tiri seegnay nabiye dadkaan siina sheeko qurux badan marka kulli yani aan waxa ka yar hadlayn dulcida sheekadu waxay ahayd saameynta yani qabyaalada laftigeeda ku yar yeelan karto bulshada dhexdeeda iyo gudubtan hore ee labada u wadahayeen waxbaankiisina dal la isku diidayo weligay kursan maayo iyadana waa sheekeero kala maqaal iyadana bugaaga ku jirta maxaad u soo qaatay weligay kursan maayo sheekadan ciwaankeedu yahay weligay kursan maayo horta dad badan baa argagax ka qaaday markay ciwaanka arkeen because of waxaad yar dareemi kartaa in ciwaanku yahay ciwaan yara ka kan oo si u yara negative laakiin ujeedku marka loo dhaadhacayo ujeedka la fahmi karayo sheekadan weligay kursan maayo waxay ahayd gabadh bay ahayd markaa sheekada wax ka bilaamaysaa bas ayay gabadhu la socotay baska kaftan iyo buuq iyo hadal baa ka dhex socday sidaynu dee iska wada naqaano deetana inantu way aamusnayd meel gulac ay fadhiday gacmaha laabatay iyadoo yani marka inan ka mid ah inamadii rakaabka saarnaay keer horreeyay kursigiisa ka horreeyay ay soo soo gaarkiina taron suuqiya joogtana yani suuqiya joogtana aan lahayn oo aamusan tan wuxuu sii weydiiyay talo inantan xamuusay baskan wada siraadana la wada hadlayo la wada kaftamayo maxaa ka aamusay markaas ayuu ku yiri oo salaamo la hadlay dadna saasay u agtay dadna ku celiyay wiilaha diiday dadna ku yiri hadana nolol maxaa ku dhacay ilaha dilaaday inta markii intii soo jeestay yani anigu ragga ma arki karaba yani mana raba inaad la hadasho maxaad iga doonaysaa iyadoo qeynaysa in ku yaabo si yar jeestay hadana si rahan kari way cabaar soo jeestay markaas ku yiri inamadu maana hena marka maana hayn kuwa gayaankaaya aabaha maana ninku hayn walaalka hamiyaan hayn intaba maxaad yani ku nacday inantii markii la yaatiintii soo jeestay yani in maragax ka soo tiri yani oo jirkii wajigeedii isbedelay huruudi casaan noqday deetana markaasay ku dhawaaqday erayga ha laakiin weligay guursan maayo inankii uu yaabay yani waxaan ku sababay inantu inay saska intaa laga ka qaado inay guur ama yani aba ay rag la hadasho deetana baska oo socday يعني واحد معقول يرنقون لي إني شكلي سيس على الصوت عمير بكو يستان كيس بس كسر دوالي نمبر كوكا قرطي تتنا بس كتير isag marka xitooni inuu ogaado bal dhibaatadan inanta ka hadashay in hawshan adu markii dambe soo hadalay jiray wala sir la hadlay yani inanta waxa uu sheegtay dhibaatada yani kaga timid ragga ama say xiriirka waqtiyada kamid ah dadna waxa dhacday inanta ayaa reerkooga inay siiyay dibada ka yimid inaka iyadu may dooranin laakiin reerkooga siiyay reerkooga markii ay siiyeen baa waxa dhacday inantii markay muddo yar wada noolaayeen dhowr bilood isma harsadeen ayay waqti yar tageen dibadda yar baxeen dadana inantii uu soo celiyay isagoo dhoofay marka inanka dibadda marka horeba ka yimid markii uu dhoofay waxa dhacday in akhiiran in uu xiriirkii go'ay inantu waxa la yaabtay in inankii baanu soo xiriirin aanu la soo hadal sidii hore iska yar bedelay habeenada kamid ah marka isagoon aad isku bedelin iska caadi laakiin la hadla ayaa waxay ku tiri uur baan ku leeyahay inta aan soo kordhigay telefoonka inantii way yaabtay yani halkay ka sugaysay farxad iyo soo dhaweyn ba ha iyaba ku jawaabin ku dhigo telefoonkii iska dadna way iska aamusay inantii in muddo abay la kala aamusnaa waqti dambe tan la soo hadlay kasoo ku yiri assalaamu calaykum waxaan doonayaa inaan ku soo diray wixii xaq iyo xuquuqaadi u lahay يعني ورقتادي ayaan ku siinaya inantii way yaabtay laakiin hadana markii ay kacdo salaad istikhari tukatay isaga dhaxay markaa ahayd telefoonkeeda gacan markaa soo kacday la hadashay oo soo sheegay ay tukatay markiiba ilaahay bay bariday iska saxatay subaxnimadii maad mooday in loo sheegayba war ilaahay ma dhibaato leh hooyadeed bedetana subaxnimadii u gashay hooyadeed gaarintii u sheegtay hooyadeed yani niyadii u dejisay waxa sheegtay in weligeed wax la dhici jireen yani la dhaafi karayo ay tahay carqalad deetana waxa dhacday in
ay xaafadii sugan deetana ninkii yidhaahdeen dee bal waxaanu ka sugi doonaa inuu ku soo diro ahaa wax la yimaado uu u soo diray deetana markaa inankay uga sheekeynaysaa sheekada marka u soo diray inantii dee sidiiba uga qaaday phobia way waxay garan wax halaali waxay ku samaysay ninkan ay ka fikraysay inan bay markaa inantii dhashay inantii yani way iska korsanaysay ilmihii yaraa inantii akhiiran way yar weynaatay marka waxaa dhacday in gabadh ay ka timid dibadda ay siqaaneen iyada ay saaxiib haayeen gabadhaasi markaa may ogeyn inay kala tegeen inanka iyadii ordiisa soo gashay hiblay iska waran soo khayr ma masha Allah markii la soo yeerisay kadib ninkaagi miyaad ogtay waxa wuxuu yahay dadka markaas ku tiri maya ma ogi bal iga waran markaa igu ogeyd already yani wax badan kama ogin shaqadiisii waxaan u qabto laakiin waxay doonaysaa inay wax ka ogaato bal ay dhageysto iyadoo ku degdegay inuu sheegtay inay kala tegeen darafta ku tiri yani ninkaagi yani waa nin mukhadaraadka waxaan isticmaalaa marka xagaa joogo sidoo kale waa nin caadaystay inuu intuu wadanka imaado oo gabdha guursado dadna gabadh ba yani door walo yimaado gabadh cusub ayuu guursadaa yani ma haynin wanaagsan balada iska fur marka iyadu ay sheegaysaa warka tan inta qosasho yar dhalaatay sidii already waan marna kala tagnay ninka ilaahay kala kaxay marka waxa u soo baxday sheeka inay ogaatay sheeka dambe oo ahayd inuu ninkan bad yani hab dhaqankiisu aan wanaagsanayn sababtoo furayna ay tahay ninka ugu dambeyntii wuxuu ballan qaaday yani inuu wanaajinayo wana isguursadeen ninkan dambe sidii bay markaa weligay guursan maayo marka carqaladaas ka timid tan isnu dajiyay yani way isfahmeen in muddo markii la sheekaysanay wala isguursaday akhiran xamso maxaan soo karnaa way ku dhaliyeen inaad buuga qorto Tudhaale amba caqabad amba farxad maxaad soo kartaa ku mataali kartaa buuga Tudhaale markaad qoraysid buugan markaan qoray waxaan arkay dhibaatooyin badan oo bulshada ku baahsan haday noqoto tahriib haday noqoto dhibaato kale oo yani fahamka nolosha si khaldan yani loo fahmay dhalinyaradii yani doorkii nolosha laga rabay inay ka ciyaarin waxyaalahaas oo dhan baa igu dhaliyay dadna buugan wuxuu isugu jiraa 18 sheeko sheekooyinkaasi waxay isugu jiraan sheekooyin kala duwan qaarkood yani wax ka sheekeynayaan tahriib qaarkood waa jacayl iyagu as entertainment waa yani madadaalaamin wax laga dheefsado laftigooda kuwa kale waxa jira iyaguna dhiirigelin يعني waxaan ognahay muhiimada ay leedahay dhiirigelinta in isku dhiirigelin wanaag la qabto oo la sameeyo marka waxay leeyahay dhaliiba haynan at least bal aan koobi karayo ama aan wax ka taaban karay dhibaatooyinka kala duwan ee bulshada ka jira bulshada soo qaadan karnaa sheekada tahriibta oo buuga ku jirta si ay dhiirigelin ugu noqoto bulshooyinta amba dhalinyarada ay ku jirta exactly ha waan soo qaadan karnaa waxay ahayd sheekadan ciwaankeeda waxa la yiraahdaa waan ku hungoobay himiladeedii waanan hoobtay waxay ka sheekeynaysaa gabadh bay ahayd dhalinyarada ay waxa ku jirtay waqtigii ugu wanaagsanaa dhalinyaranimada ama shabaabnimada oo secondary school bay maraysay inta qaar kamid asxaabteeda deetana tahriibay wadagtii yani asxaabta yani saameynta ay isku leeyihiin kuwa kala deetana iyaguna iyadoo la saaxiibtayba damacay inay iyada tahriibiyaan way raacdo sababtoo ah iyadoo waxay ka soo jeeday reer lacag leh oo iska ladan oo kale kharashaad haya reerkoodu lama jecleen inay dibadda tagto inanto markasta yani habeedu way wax kula dirtaan jireen inay joogto wadanka wax kastana ay siinayaan ay u horayaan oo iyagu awoodaan iyagu marka iyagoo eegay asxaabteedu dahabkii hooyadad ku soo xadi karto iyo xadiga lacag ee yani loo soo diri karo markii tahriibka gasho ay ku duuleen dadna waxay dhahdeen namari inantii si qarsoodiyo soo baxday hooyadad bay ka soo xaday dahab waxooga lacagna way soo qaadatay adigu sidii baa lagu safray habeenkii ugu horeysay yani meel wada kayna oo dhira ayaa waxa ku helay roob hilaaca onkadka يعني dhibaatada jirtay mugdiga iyo xayawaanaadka yaacaya meesha waxna waxay habeenkeedii ugu horeeyay halka u dhaxdo taas waxay ku dhalaysay argagax badan markii qaar kood bay istiraahdaa markii xaaladan yar adkaysan kari weydo ma talo dib ma noqoto laakiin ma ahayn meel laga noqon karayo ma ahayn cause of ma bay garaneen bajaha laali jahay oo socoto sidii baa lagu socday dadna waxa dhacday inay ka gudbeen meel dadna meel kale hadana ay tageen oo la geeyay meeshii baa dadna dad cawaana ayaa ku helay dadna xaafadoodii bay la soo hadlaysaa roona salaag iyo waxay soo dira oo loo soo dirayaa dadna markii ka gudubto halkii ayaa waxa dhacaysa cawaan bay helay cawaankii markay helaan ay dadkii xabad la dhacayaan yani la kala laynayaan akhiran iyadiyo ordaysiyo dhowr inanoo kale oo wada ordaya ayaa inamadii la qabanaya marka dhowr baa iyaguna hadana ka sii baxsanaya la 2 ilaa 3 kale iyadii marka la qabto la kufsanaya dadna markay kufsadaan ayaa iyadiyo yani gabigeeduba si kala oo dhiban oo gurguuranaysa yani dibtii ka soo gaadhay kufsiga ayaabo intuu mid qaadi dul istaagay isagoo qoslaya ayaa waran yani ka gelinaya caloosha halkii bay dadana ku dhimanaysa yani taas waxay ka turjumi kartaa dhibaatada waxaan ogeyn ama se yani wax dhibaatadiisa aad ogeyn inaad gasho salahan tahriibkan intuu inaga kalaabtay inuu ognahay inta dhalinyaro ay noloshoodii ku waayeen inuu ognahay inta hal door inuu ku weyn inuu ognahay maanta hadii ay noolaan lahaayeen bulshada yani qayb weyn
ka geli lahaa hawshooda. Marka tan waxaan ka turjumayaa ama ay sheekadana ka sheekeynaysaa ama ay sawiraysaa ma wada sawiraysa dhibaatadii tahriibka laakiin qayb ka mid ah dhibaatadii tahriibka. Yani waana waxay wacyi u tahay ama tusaale u tahay inay dhalinyaradu bal ku tusaale qaataan dhibaatadii tahriibka dhibaatadiisa iyo inay ugu wanaagsantahay dhibta mari lahaayeen inay u samraan oo iyaga laftigoodii si ka duwan sidaan ay imika u fikiraan ay hawl galaan ay taasi ugu wanaagsantahay midho wanaagsanna ay ka helayaan dadaalka wadankooda ay ku sameeyeen. tahriibta naftoodii waalidkoogiba ay ku halaagayaan ay iska daayaan. Exactly. xamso waxaad leedahay maxad turaale la yiraahdo maxadkaasi madiiniba mise waa maadi macadkani waxa weeyaan Turaale Motivational Training Center weeyaan marka waxaan ugu talagalnay wax xarun tababarada lagu bixiyo oo dhiirigelin marka la leeyahay bulsho kasta waxay ka qaadataa qaybteeda oo aqoonta ama waxa ay aaminsan tahay ay ku faafisaa anagoo ku duulayna diinteeda islaamka waxaan ku faafinaa yani fikir wanaagsan dhiirigelintaas qofkii lagu dhiirigelin noloshiisa wanaagsanaato noloshiisa adduun wanaajiyo noloshiisa adduun hadii wanaagsanaatana waxa waalidkiisa aqrinayna wanaagsananayso waayo tii ducaayada Allahumma aatina fid dunya hasana wa fil aakhirati hasana wa qina adhaban nar marka noloshaada adduun oo wanaagsanaato cibaado iyo wanaag iyo yani wax wanaagsan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ogolaya aad ku qabato waxay wax ka taraysaa wanaajinaysa noloshaada dambe aakhiro tobaradan aanu sinoo tobar yar gaagaaban tobarada gaagaaban qofku waxay ka caawiyaan waa personal and professional skill weeyaan qaarkood marka personal qofkii waxa la isbarayaa isaga shakhsiyadiisa waxa la barayaa sidii uu la tacaali lahaa nolosha waxa la barayaa sidii uu noqon lahaa qof kamid ah dhaliyaha hamigiisa sidoo kale waxa la siinayaa skills ama xirfado ka caawiyo inuu ka gaadho hadafkiisa iyo waxa uu doonayo nolosha professional skills kani waxa markuu isagu naftiisa barto qofkii waxa awood u yeelan karaya inuu doorto wixii talentkiisa ku soo baxayanba mawhibadiisa Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay si uu uga mid dhaliyo marka professional skills ka waxa bixiya يعني معلمين بابحية هرجع مع هذا مركب واحد لو تلاقي قف مركو يسبرت نفسيا إنه يعني واحد وكل شقتي كريانا وبرتها يسوق وقت قاب برانيا مركب أنا واحد من سنة هي كل يعني أنت أنا هقول كلمة على هذا برشة نفط هذا هرت اللي جبك تايو بريال إسكاه والله مركب واحد لقبنا يو واحد هرت السهم أنتي سايا كهريسة قبش ديسة لبعضهم هيستدرن يردن واحد من سنة inay tahay inaanay nafoodi horta marka hore baran si kastoo cilmi u leedahay hadda naftaada baranin marka hore dhibaato ku keenaysa marka ma dad gaar ah siisaan tababarka mise qof kasta oo ku yimaada amba isu soo diiwaan geliya siisaan tababarada marka yani nolol la leeyahay horta waa loo siman yahay waxaan target ka saarnaa 90% dhalinyarada sababtoo dhalinyarada waxaan ognahay bulshadana heerkii kaga jirtay inay 70% marka dhalinyaradan focus ka saarnaa walina heerka secondary schoolska ilaa heerka jaamacadda ayaan focus ka saarnaa marka waxay ugu yimaadaan halkay ku taala xaruntu sidee u soo doonan karaan dhalinyaro waxa jirta maanta ugu horeysa Turaale oo man garanayninba markay daawadaan barnaamijkan waxaan talo Turaale halku ku yaala sidee loo heli karaa Turaale waxa uu ku yaala ama ku bixinaa tababarkan iskuulka Sheekh Bashiir la yiraahdo magaalada Hargeysa sidoo kale Burcaan qayb kale ayuu ku leeyahay halka laga xiriiriyo waxaan social media oo kale waxaan ku leenahay page baan ku leenahay hadii tusaale ahaan kale Facebook oo kale Turaale Motivational Training Center lagu qoro dhammaan xarunta iyo xogteedii tababaradii ay bixisay dhammaan activitieskeedii halkaas laga socon karaa laakiin halka xarunta rasmiga waxa weeyaan waa Sheekh Bashiir iskuulka la yiraahdo magaalada Hargeysa tababar kale oo ahayn Turaale oo bixisaa mu jira anigu shakhsiyan haa u jira waayo waxaan bartay xirfado kala duwan oo ah horumarinta shakhsiyadda sida life coaching ama sida qof lagu tababari karo ama lagu fududeyn karo inuu hankiisa gaadho sidoo kale waxaan bartay public speaking waxa la dhahaa madalka hadalka inuu qofku awood yeelan karo inuu fikirkiisa soo gudbisto isagoon cabsi qabin sidoo kalena saameynaya ciidan uu la hadlayo marka life coaching waxa aan ka bilaabay xagan social media Facebook oo kale waxaan ka coach gareeyay ilaa dhowr iyo 20 qof dad gaaraya ayaan coaching u sameeyay oo caawiyay waanan wadaa iminka still waxaan qabtaa oo leeyahay barnaamij kale oo la yiraahdo weheli naftaada kaas oo kaga hadlo sida qofka shakhsiga u horumarin karo noloshiisa oo gana gudbi kara barnaamij u gaara YouTube-ka iyo YouTube-ku gaar ku yahay iyo Facebook meel gaar ah isagana loogu iman karo xaruna maaha meel gaar ah maaha laakiin waxa weeyaan waa barnaamij daawashada videos weeyaan aan bishiiba mar qabto waana lagu tagi karaa hadii u heli naftaada lagu qoro ama Xamse Turaale lagu qoro YouTube-ka hadii aan ku noqono magaca Turaale Xamse dhowr jeer bay nagu soo noqday buugiiba ku qoran magacaagi weeyaan iskuulka maxadka Turaale ma magaca adiga ee iskale oo iskuulka sameeysto abaabulay mise waa laga caawiyay magaca ma yeen kugu celiyo magaca Turaale ma magacaaga adiga Xamse Turaale waana buugaaga Turaale ugu horeeyay maxadkina wuxuu noqday Turaale marka ma adiga ayaa abaabulay Turaale
mise waa cid kale kugu abaabushay oo mas-uul kala jira macad ahaan aniga iskale mas-uul kale ma jiro mas-uulka ugu sareeya waa aniga aasaasaha fikirkuna waa aniga marka turaale sababtan aan macadkii turaale ugu bixiyey waxay ahayd maadaama turist tahay waxaan arkay macadka laftigiisii inuu dadkii u turayo in dadkii lagu dhiirigelinayo in dadkii wax loogu yani wax loogu tarayo oo lagu wanaajinayo marka turist ereyga turaale yani macnaheedu waxa ku fadhiya macne aad u weyn waana turist hawshan aan ku jiro dhan baan ahay inaan cid u turayo yani waan wanaag ka shaqeynay dad badan markay xabso turaale kugu arkaan amba Facebook amba meelaha kale oo dhan turaale muxuu ahaa ha kaga bogtaan barnaamijkan dhowrka jeer kugu soo celceliyay magacaas xamsow gabagabadii iyo gunaanadkii barnaamijkeena hal abuurka hirgalay maxaad ku dhiirigelin lahayd dhalinyarada adiga kaa yaryar kuwa facaaga iyo kuwa dambe ee doonaya inay mustaqbal gaadhaan amba horumar nolosha ka gaadhaan kulley waxaan kula talin karayaa horta waxa ugu horeysa qof ilmiyaan iska dhisaa waa cibaadada Ilaahay subhanahu wa ta'ala qofka haddii cibaadada ka soo baxo يعني waxa kala dhan uu fududaanayaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala kan inoo sheegay oo ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun yani jinkiisa wax kala oo maana inay caabudaan mooyaane marka abuurteena ujeedkii ka dambeysay baa ahayd inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala aynu caabudno aba ujeedka weyn yani Ilaahay koonkan oo kaneba in Ilaahay aynu caabudno waxaynu dareensanahay adduunyada in laba shay yaalaan oo camal iyo imtixaan oo qofkii uu shaqeynaya wax buu qabanaya dadna Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa imtixaamaya isagoo qofka samirkiisa iyo bal sidoo kale falceliyo aakhirina waxa yaala jazaa iyo xisaabo wala xisaabinaya waana la is abaal marinaya marka xisaabta waxa ka horeeya camalka ka horeeya adduunyadiya kulay inta badan dhalinyaradu waxay ku fikirtaa bal horta diyaariye shahaadooyin diyaariya waxaan kala qabta dadna waxyaalo badan ba kala isgarooba waxa ugu horeeya waxa weyn waa cibaadada hadii aad wanaajiso noloshaada gabigeeda way wanaagsanaansaa waa Ilaahay subhanahu wa ta'ala inoo ballan qaadayba hadii aynu cibaadadiisa si toos ah uga soo baxno wanaagsan inuu isaguna nolosheena wanaajinayo qodobka labaad wuxuu noqonayaa inuu qofku is helo يعني قفك إنه السلام عنه ذو حويان قفك هدي وبرتو تهلن سكيس أما موهبين كيس إلهي سبحانه وتعالى يسي وهلا أبور نمد كوكيني كرا وكجف عيدين كرا مركا هبدو أما موهبدو ما هم بتالنت ما هو واحد لقبرته سكول أما تشام على لقبرته لكن هو واحد بهم باريستي ذكارك برشيد ذكارك بي وح سمين كران أما نفتو ذو هبين كران بوهر مرن كران تسكرنا ها واحد نوتسكرنا وحويان قفك هدي وبرتو waxa uu ku wanaagsan yahay isagu shakhsiyan oo talent ah wuxuu ku baran karaa qofku inuu tijaabooyin sameeyo nolosha waayo nolosha gabigeeda waa tijaabadaas oo lagu talagalay in wax laga barto marka qofku hadii uu tijaabooyin sameeyo kala duwan noloshana siyaabo kala duwan uu u fikiro dhinacyo kala duwan uu eego oo nolosha ka qabsano dhinaca negative-ka amba xumaanta waxaan hubaa inuu qofkaasi is helayo qofkaasi hadii isalna waxa uu baalay inuu horumar gaarayo waayo gabigeeduba qofku wuxuu ka kooban yahay laba waa environment dibadeed iyo environment gudaheed yani environment waa deegaan gudaheed iyo deegaan dibadeed deegaankiisa gudaheed waa ka aan la arkayn yani waxa kamida go'aan qaadashadii baa kamida waxa kamida talentska qof wuxuu ku wanaagsan yahay hadalku ku wanaagsan yahay qof kale leadership ku wanaagsan yahay ama hogaaminta ku wanaagsan yahay qof kale wuxuu ku wanaagsan yahay yani caawinta dadka qof kale wuxuu ku wanaagsan yahay fikirka degdega qof waxba ku wanaagsan yahay qof kale wuxuu ku wanaagsan yahay curinta iyo wixii lamida marka qofku hadii uu helo waxaan ku wanaagsan yahay waxa hubaala in bulshada doorka uu ku lahaa oo ka qayb qaadan karo kaga qayb qaadan karo hal abuurnimada isagu leeyahay taas oo saamaxaysa inuu noqdo qof u buuxiyay positionkiisa ama meeshiisi ay bulshada u baahnayd inay u buuxiyay ma sha Allah dardaaran fiican iyo dardaaran fiican gabagabo fiican ayuu Xamseen igaga tagay halkan waa barnaamijkeeni hal abuurka hirgalay oo idin soo diiso Xamdi Cilmi Muuse Xamdi Xayaad حمسة ترالنا عاون مرتينوغي حمسة مع السنتي برنامج كنوح ديريك ليا قراية وديريك ليا قف كستا وهو مركي قارة هيك سنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.